بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام والسلام على رسول الله وأيوب مختار oo mar kale idinku soo noqday maanta waxaan rabaa arrin yar oo ku saabsan arrimahan iskaata meldinka oo mar dhow soo baxay mar dhowna in dib loo fiiriyo lana celiyo inaan maaragtay wax yar aan ka taabto marka ugu horeysa horta waxaa idin xasuusinaa iskaata meldinka Norway ma ahan mid dhammaystiran oo markii lagu soo diro micnaheeda ma ahan in wax walba ay sax yihiin oo dib aad isaga celiso marka waxaa idinkula talinaa ama noqo qof caadi ah ama qof shirkad haysta noqo inaad iska fiirisid inay wax walba saxan yihiin meesha ku qoran dibna u celisid tusaale ahaan waxaan idin siinaa hadda ani maalin horeeto midkayga waxaan ku arkay shirkad aan weligay aan u shaqeynin oo meesha lagugu soo qoray shirkaddan sanadka hore waxaa kaa soo galashay lacag adiga 10 kun oo koron camal waa lacag badan maahan waa $1 laakiin eganti lama u shaqeyninba marka waxyaabahaasoo kale iska dhici karo qaladaada dhici karo marka muhiim waa qofka inuu iska fiiriyo marka waxaan rabaa laba arrin inaan ka hadlo muhiimadana aan saaro shirkadaha Enkeltman Foretaga iyo AS-ta waliba Enkeltman Foretaga maadaama Soomaalida inta badan ay u badan tahay kuwa leh shirkada Enkeltman Foretaga wax yarna aan ka taabto shakhsiyaadka Enkeltman Foretaga waxaa jiro laba shay horta wax la yiraahdo flat scat iyo wax la yiraahdo trin scat Soomaalida badanaa trin iskaadka ma ku baraarugsano flat iskaadka bisa ku mashquulnaa canshuur maxaa bixisaa 30% uu ku leeyahay flat iskaadka waa 30% ama trin ama ma taqaanaa tabel track waxa maaragtay loo yaqaan ama 5 ama 30% cid kasta bixisa laakiin waxa meesha ku qarsan wax la yiraahdo trin iskaadka marka wuxuu mar kastaba ku xiran yahay hadba in tactiga ku soo galo tusaale ahaan 200 kun oo ka bilowda iyo wix ka badan 200 ilaa 318 kun tusaale ahaan waxaa bixinaysaa 1.7% markuu sii kacana percentage-ka wuu sii kordhaa marka arrintaas rabaa inaan taabto kadibna ma taqaanaa oo maaragtay inaan hore aan arrintaas uga hadlo marka aniga waxaa la yiraahdaa magacayga Ayuub Mukhtaar waxaan madax u ahay shirkadda Skyura AS waxaana aad maaragtay ugu takhasusay arrimahan hadday noqon lahayd canshuuraadka background-kayga waa arrimahan economiga iyo arrimaha IT-ga waxaan specialist ku ahay hadday noqon lahayd arrimaha iskaat rådgivning Skyurana waa shirkad autorisation renska forsalskap oo madlamna ka ah memberna ka ah renskap Norge marka maxay macno u leedahay markaan ku leeyahay autorisation waay shirkadda markay tahay shirkad autorisation renska forsalskap waxay ka haysataa shati wasaaradda maaliyadda Norway financial siinaha waana shirkad u haysata in ay tala ama maaragtay bixin ka siisa dadka arrimaha renskapka isla markaasna dadka mas'uuliyadooda ay qaado maaragtay kana shaqeyso wax kasta oo ku saabsan xisaabaadkeeda dawladana ay ku sii kontroleyso mas'uuliyadeedana anaga aan qaadayno marka waxaa og tahay mar haddii shirkad noocaas ay ku shaqeynayso in aad ma taqaanaa aad ka jiifanaysid maaragtay wixii xisaabaadkaada ku saabsan marka insha Allah videoga marka waxaan rabaa inaan idinkugu faa'iideeyo qaabka iskaata systemka ama qaabka canshuuraha Norway ee u shaqeeyaan waliba iyo qaabka ay muhiim tahay inaad u fahansantahay si aad isaga yareysid tirin iskaadka maxaa yeelay meesha inta badan Soomaalida canshuurta aad u tirada badan looga qaado waliba tagaasileeda ugu badan canshuurta ugu badan waxa laga qaado 1 milyan oo korona soo galayso waxa laga yaabaa 500 kun in canshuur looga qaado ama 400 kun marka taasaa rabaa inaan wax yar idinka taabto marka tirin iskaadka wuxuu u shaqeeyaa tusaale ahaan ilaa 200 kun waa free wax tirin iskaada ma lahan laakiin 200 kun mar haddii aad kormartid 206 kun ilaa 318 kun waxaa bixinaysaa 1.7% tirin 1 aa la yiraahdaa tirin 2 318 kun ilaa 725 kun 4% aad bixinaysaa inta u dhaxayso 725 kun ilaa 980 kun inta u dhaxayso waxaa bixinaysaa ayadana 13.7% tirin 4 waxaa bixinaysaa 980 kun hadduu gaaro intagtigaada ilaa nastan milyan ku dhawaad milyan iyo 500 kun 16.8 marka taas macnaheedu waxay tahay canshuurtii caadiga ahayd oo 30% waa laga qaatay kadibna tirin 1 tirin 2 tirin 3 tirin 4 intaan soo sheegno percentage waa canshuur extra ah marka saa u fahantii tusaalahana illustration ku sameey doona tusaalaha koowaad waa qof caadi oo 500 kun soo gasho waxaa laga qaaday 30% oo waxaa laga qaaday mataqaanaa
flat iskaadka ahaa 150 kun uu bixiyey. Train iskaad waxaa laga qaaday aragtiin train 1 iyo train 2 xisaabta meesha ku qoran. Total train iskaad wuxuu bixiyey inta aragtiin. Kadib trigda A50 Norway la qaadaa si ay ogtihiin 38 kun oo maaragtay naaf oo kale lacagaha qofka markuu xanuunsado dib loo siiyo dadka laga jaraa. Marka qofkaas sidaas uu noqday xisaabtiisa. Okay, waa ognahay tagaasileydoo kale ama dadka enkeltima fartaago lacagaha badan shaqeeyo lacag fiican soo gasho. Marka 1 milyan oo qofka markuu soo galo automatic train 4 uu gaaray. Train 1 intaas laga qaaday, train 2 16,270, train 3 34 kun uu gaaray, train 4 na intaas. Marka total train iskaadka kaliya 56 kun gaaray. Marka hore tan flat iskaad 300 kun laga qaaday. Trigda A50 enkeltima fartaago waa 10.8% 2026. Marka total almost qofkaas wuxuu bixiyey 500 kun ku dhawaad. Ma fahantay? oo canshuur iyo trigd A50 marka la isku daro. Marka comparison markaan sameeyno ama ma aragtay isbarbardhig xisaabtii sidaas ay noqotay meesha ka aragtiin. Marka waxaa meeshaas marka kaaga ma aragtay cad in train iskaadka uu aad iyo aad wax ugu badan oo qofka saameyn ku leh canshuurtiisa inay tahay. Marka waa inaan ka fikirnaa marka maxaa train iskaadka ma aragtay yareyn kara, qaabkee train iskaadka hoos u dhigi karaa hadda meesha ugu muhiimsan oo qofka oo ma aragtay culayska xagga canshuurtiisa ee ka ma aragtay saameynayso halkaas. Marka yaana waxba idin ku dheereynin arrintan muhiim waay. Marka waay arrintan muhiim u tahay enkeltman fartaaka overscootkiisa waxaa ma aragtay saameyn ku leh train iskaadka iyo trigd A50 iyo total iskaadka. Marka kadib waxaa muhiim ah rigti faradraag iyo kostonaadka. Marka waxaa inta badan aragnaa dad ma aragtay nagu soo biiray marka hore tan shirkado kale oo Norwegian la joogay inaaba macnaha loo sheegin ba faradraag xaq uu leeyahay ama waxa ka yareyn kara train iskaadkaas. Marka arrimo badan jira oo qofka ka yareyn karo inta badan aan warbixinteeda la siinin. Waxaa insha Allah idinla wadaagi doonaa cid allaale cidina la soo xiriirta inaan arrimahaas idinka caawino sida iskaga yareyn lahaydeen canshuuraha si sharci ah waliba. canshuuraha waxaa la isaga yareyn karaa adigoo wadada sharciga maraysid wax badan oo xaq u leedahay jiraan oo adigoo wadada saxda maraysid hoosna idinkaaga dhigi karta canshuuraha. Marka aad u isticmaalaan dadkan wadankan aan la noolnahay mana galaan ma aragtay wax kunkuush ah laakiin anaga ma fahansanin mana ma aragtay mana helno ma aragtay caawinaad sax ah. marka Skyura cid kastoo la soo xiriirto waxaan balan idinka qaadayna insha Allah in arrintaas idinka caawin doono. Marka contact information keena waa aragtiin waxaana insha Allah Skyura idinka caawin doonta haddii noqon lahayd skaat meldin Rainscape Fradrag documentation skaat road evening iyo mataqaana inaa xitaa obridin iyo Rainscape ku sameeyna. Marka arrinta obridinka muhiim waaye maxaa yeelay waxaan aragnay dad tarmiinsigiisoo kale intay nala soo xiriireen tusaale ahaan MVA oo kale faatka sidee u taqaaniin lacaga badan bixiyeen tarmiin 5 iyo 4 markaan dib ugu noqonay ay noqotay in lacaga badan ay u soo noqdaan waxyaabo badan ay xaq u lahaayeen aanan loo rajis garaynin. Marka shirkadaha badanaa waaweyn oo xisaabaadka badanaa waxaas ayaga waqti badan ma geliyaan amaba ma aragtay tixgelinayaan baad inay wax ku soo noqdaan waxaas ma kala jecla. Marka laakiin anaga muhiim ay noo tahay inaan waxyaabahaas idinka caawino. Marka nala soo xiriira contact informationka meesha ku qoran nagala soo xiriira haddii noqon lahayd telephone iyo email diyaaraan idinaha inaan idinka caawino wax kasto. Marka welcome. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh. midda kale waxaan ilaabay raali noqda dadka caadiga ah oo ayadan aan dhahay waxa waaye arrintaas waxba idinkaga sheegi doonaa. dadka caadiga inta badan waxaa muhiim ah waalidiinta oo kale inay xasuustaan faradraag waxay dhahaan iyo sidoo kale ra'iisa faradraag oo inta badan dadka fahansan yihiin laakiin si sax ah aanan u rajis garaynin. Marka labadaas ugu muhiimsan wixii kale oo extra ah waa maaragtay ayadana mataqaana wax tibis ah waa nala soo weydii karaa waana idinla wadaagayna insha Allah. waa mahadsantihiin raali ahaada waxa waaye arrintan kale aan ku dheeraaday. Assalaamu calaykum.